بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى ما تسكله marka labaad dhammaan bahda saxaafadda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa alxamdulilah waxaan rabaa maanta halkan inaan hambalyada ciidul adxa aan kala wadaago dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan dunida daafaheeda waxaan leeyahay hambalyo 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 gaar ahaan reer galmudug waxaan leeyahay ciiddeeda kale ilaahay farxad iyo baraaraha nagu gaarsiiyo waxaan filayaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala inuu maantay si nabad ah ciidda nagu soo gaarsiiyey meel walba oo muslimiinta culayska haysan waxaa le ilahay ka qaado gaar ahaan soomaaliya waxaa leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala horumarkooda iyo nabaddooda kor ha u qaado dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaaliya ciidul adxa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo farxadda ciiddan la qaybsanaya gaar ahaan ummadda reer galmudug ilaahay bisheeda kale si nabad ah ilaahay nagu gaarsiiyo iyo caafimaad culeysyada maaragtay dhammaan muslimiintu dareemayeen iyo dhammaan caalamka covid-19 ugu ballaarnaa iyo inta kaleba waxaa leeyahay ilahay ummadda ha ka qaado ilahay naguma soo celiyo ummadda meel walba ay joogaan ilahay ka dulqaado marka waxaa leeyahay farxadda ciidda walaalayaal aan la wadaagno walaalaheenna laga yaabo farxadda ciidda inaysan haysan waxay kula wadaagaan ummadda ay jaarka leeyihiin ee muslimiinta ah qof walba qof kale wuxuu dheer yahay ha ku sadaqaysto farxaddana aan la wadaagno dhammaan si ay farxaddu noo wada gaarto qofka aysan u masaabaxayn tabartiis waxaan leeyahay inta wax haysata khayr badan allah in siiyo walaalayaal ka farxiya ee dhammaantiina ciidul adxaa ilaahay waxaan ka baryayaa acmaasha ilaahay naga aqbalo meel walba ay joogaan muslimiintana hambalyo hambalyo